saaxiibada qiimiga badan oo maalin ama habeen wacan meel kastoo dunida kaga dhaqaaqaysaan waxaan muuqaalkan ugu warcelin doonaa su'aalihii aad isoo weydiiseen sanad guuradii labaad ee IM252 waana qaybta labaad ee aan uga jawaabayo su'aalaha ay asxaabta IM252 isoo weydiiyaan qaybta qoraalka ee muuqaalka raacsan ayaad ka heli kartaa qaybta koowaad ee aan sanadkii hore ka jawaabay run ahaantii sanadkan su'aalaha waa ay ka tira badan yihiin kuwii hore sidaa darteed waxaan su'aalaha sanadkan u qaybin doonaa dhowr qayb si aan uga jawaabo inta aanan bilaabin ka jawaabista su'aalahan waxaan rabaa inaan ka hormariyo sheegista in sanadkiiba hal mar aan su'aalaha noocan ka jawaabi doono ayna kaliya ahaan doonto sanad guura kasta alla idankii su'aalaha sanadkan haddii aanu soo laabto waxay ka kala yimaadeen magaalooyin badan oon qayb ahaan ka xusi karo muqdisho afgooye boosaaso berbera baydhabo gaalkacyo gibiley boorama kismaayo hargeysa gaarisa iyo kuwo kale oon ka gaabsanayo si aan warka usoo gaabiyo iyo sidoo kale wadamo aan iyagana ka xusi karo Norway ingiriiska turkiga jarmalka canada kenya maraykanka sweden austria france malaysia denmark iyo wadamo kale oo uu sheegistoodu warku ku dheeraanayo inkastoo su'aalooyin dhowr ay soo laalaabteen sanadkan waxaan aad uga xumahay inaanan ka jawaabi doonin su'aalaha la iga weydiiyay wax ku saabsan cilad u baahan faahfaahin dheer oo waxaan jeclaan lahaa in dadkaas su'aalahaas isoo weydiiyay ay si gaar ah isoo weydiiyaan si aan uga jawaabo kuwa aan ka aqaano weydiimooyinka sanadkan oo ka kala yimid Facebook iyo YouTube waxaan ku hormari doonaa ka jawaabista kuwa Facebooka muuqaal kale ama muuqaalo kale ayaan uga jawaabi doonaa kuwa YouTube-ka iga yimid alla idankii hadal badan ha ma buuxshay aan gudaha u galo qaybta labaad ee ka jawaabista su'aalaha sanadkan aan ku hormar su'aasha koowaad waxa soo weydiiyay Cali Saciid oo jooga Norway Cali haddii su'aashiisa aan soo koobo waxa uu leeyahay maxaad u sameyn weysay page ku saabsan kombiyuutarada iyo programyada sida Adobe After Effects Photoshop iyo kuwa lamid ah markii aan soo koobo wuxuu ula jeedaa maxaad u sameyn weysay page aad koorsooyin ama casharo ku bixinayso Cali Saciid waan ka xumahay hadeer maanan samaynin laakiin sanadka cusub 2019 insha Allah waan filayaa inaan sameeyo halka igala socod haddii aan su'aasha labaad u imaado waa Cabdi Maxamed waa wiil YouTuber oo naqaano Cabdi wuxuu leeyahay dad badan ayaa i weydiiyay ma wada dhalateen IM252 runtii waxaan aaminsanahay in aan waxba dhaamin inaan wada dhalanay waayo qoyska Soomaaliyeed ayaan ka soo wada jeednaa midda isku ekaanshahana waxaan aaminsanahay inaanan aad isugu ekayn waayo Cabdi oo aad iga qurux badan mahadsanid balaan su'aasha saddexaad u gudbo waa Khadar oo jooga Berbera wuxuu leeyahay waa laba su'aalood yaa ka caawinaya inaad nala wadaagto muuqaaladan aadka u tayada fiican Khadarow horta ma aaminsan in muuqaaladeedu tayo leeyihiin marka loo fiiriyo rajada aan leeyahay balse markii aan soo koobo cidna igama caawiso oo inta badan boqolkiiba 99.99 hawsha aniga qabsada waa laga yaabaa in marar aad u dhif badan ay asxaab qaar caawiyaan su'aashiisa labaad daan u gudbo sideen u ilaashan karaa Gmail-ka igu xiran mobilkayga si aan la iga jabsan kaliya furasireed adag ku xiro oo uusan qofna ka qiyaasi karin ha ka dhigan furasireedkaaga telephone numberkaaga wax aad xiisaynayso wax aad jeceshahay wax aad ku fikirayso wax aad inta badan ku dhawaaqdo kaliya furasireedkaaga adkayso su'aasha xigta haddaan u gudbo waa Maxamed oo isagana jooga Muqdisho Maxamed haddii aan su'aashiisa soo koobo waxa uu leeyahay kaamirad noocee ayaad wax ku duubtaa waxaan isticmaalaa Canon 70D balse lenska ku xiran ayaa ah Sigma aperture-keedu uu yahay 1.8 DC millimeter-keedana uu yahay 18 ilaa 35 millimeter mahadsanid Maxamedow waxaan ugu doonaa su'aasha xigta waa Barre Cali Barre waxa uu leeyahay waxaan jeclaan lahaa inaad noo sharaxdo sida Amazon wax looga iibsado adoo jooga Soomaaliya Barrow horta waxaan aad uga xumahay dhibaatooyinka dadka Soomaaliya haysta markii dhanka tiknoolajiyada laga hadlay waxa kamid ah
in website-yada waaweyn ama suuqyada waaweyn ee caalamka aysan ka iibsan karin waxyaabaha qaar. haddii aad doonto Amazon waad ka iibsan kartaa buugaag iyo waxyaabo noocaasa, balse kama iibsan kartid wax electroniga. waxay ila tahay inay aad u adag tahay. hadduu jiro qof Soomaaliga jooga oo Amazon wax ka iibsaday weliba waxaasan wax electronic ay yihiin, waan jeclaan lahaa inaan ogaado, balse ilama ahan. kuwa iyagana deliveryga sameeya ee alaabaha keena Soomaaliya, dhowr jeer aan isku day inaan la xiriiro oo weydiiyo haddii alaab ay ka soo qaadi karaan Amazon ama suuqyada waaweyn ee caalamka ee digitalka ah Soomaaliyana keeni karaan. waxay igu jawaabeen inaysan wax electroniga Soomaaliya keeni karin, balse waxyaabaha kale sida buugaagta iyo dukumeentiyada kale ay keeni karaan. su-aasha xigta waxay ka timid Cabdullaahi Faarax oo isagana jooga Muqdisho. waxa uu leeyahay Cabdullaahi, qayb ma ka leedihiin Soomaaliya ama branch kale? waxa uu la jeedaa xarun ma ku leedihiin Soomaaliya ama IM252 xarun ma ku leedahay Soomaaliya? Cabdullaahi yow, IM252 xarun kale maba lahaba, oo xarunteeda oo idil halkeeda xarun waxa uu ku yaalaaba Soomaaliya. haddii aan u gudbo su-aasha xigta, waa Axmed Gacal oo jooga Kismaayo. Axmed laba su-aalood ayuu wataa. midda koowaad, ma heli karnaa in isbuuc kasta aad hal video inala wadaagto? waaba sida aan hadda sameeyo Axmedow. su-aasha labaad, marka aad wax duubayso maxaad wax ku duubtaa? maxaad si adeegsataa ood ku hagaajisaa? horta waa taan hore u sheegay waxaan wax ku duubo kaamira ahaan, balse waxaan adeegsadaa marka aan muuqaalada hagaajinayo Adobe Premiere CC 2018 ama Adobe Premiere version-ku doona ha noqdo, marba mid ayaan adeegsadaa. su-aasha xigta waxay ka timid Qays oo jooga Muqdisho. Qays waxa uu leeyahay inaad channelka weynayso aad shaqaale dheeraada ku soo darto si aan wajiyo badan u daawano ma qorsheynaysaa? waxa ii qorshaysan alla idankii in team badan oo ila shaqeeya aan sameeyo, inkastoo hawshooda halkan aan ku cadeyn karin oo weli aanan qorsheyn, laakiin waan rajeynayaa in team badan ila shaqeeya aan sameyn doono insha Allah. midda labaad, xaruntaada Muqdisho xagee kaga taalaa? waxay kaga taalaa, inkastoo degmooyin dhowra soo maray, haddeer waxay ku taalaa degmada Hodan. waa Cabdikariin oo aan sheegin meesha uu joogo. Cabdikariin waxa uu leeyahay, maxaadan ugu soo darin barnaamijyadaada video editors ama habeynta muuqaalada lagu habeynayo taleefanada sida Android iyo iPhone? Cabdikariinow, waxaanan ugu soo darin, horta ma jecli in muuqaalada lagu sameeyo taleefanada, waayo markii tay ahaan la fiiriyo muuqaal telefoon lagu sameeyey ama lagu habeeyey iyo muuqaal computer lagu habeeyey marna islama simi karaan, isku awoodna ma ahan. muuqaalka taleefanka lagu sameeyo inkastoo mar walba xirfadda ku xiran tahay, haddana muuqaalada in taleefan lagu habeeyo iyo in lagu habeeyo computer, waxaan aad u doorbidaa in computer lagu habeeyo. waan kusoo dari doonaa iyadoo computer lagu habeynayo, laakiin ilama ahan inaan kusoo dari doono in muuqaalada lagu habeeyo mobile. qofka isagaa baran kara, isagaana adeegsan kara haddii dantu qabato. maxaadan ugu soo darin cashar ku saabsan YouTube? iyadan waan kusoo dari doonaa, laakiin iyagoo koorsooyin ah ama casharo ah alla idankii. su-aashan waa Cabdiraxmaan oo jooga Boosaaso. Cabdiraxmaan waxa uu leeyahay, ma laga yaabaa inaad noo soo gudbiso barnaamijyo ku saabsan sida loo xusho mobilada tayada leh? waa laga yaabaa, waana soo gudbin doonaa alla idankii. iyo wax kastoo teknolojiyad ku saabsan. kaliya waxaan aaminsanahay inta aanan dunida ka tegin waxa aan aqaano in ummadda ama dadka aan ku wareejiyo waa wax iga go-an insha Allah. wax hadda kadib aan baran doono si aan dadka u barana way jiraan. waxa inta yaray haddeer aan aqaanana in dadka iyagana iga bartaan waa rajeynayaa. waa Suhayb Cismaan oo jooga Turkey. Suhayb wuxuu leeyahay, maxaad u diyaarin weysay ardayda ama asxaab aad barto barnaamijkan isla markaana kaala qayb qaata sida hagaajinta muuqaalada? maxaad u sameyn weysay team adig kula shaqeeya?
markii la soo koobo Suhayb waxaan aaminsanahay inaan weli la gaarin heerkii aan dad waqtigooda halkan ku bixin lahaa laakiin markii aan isiraahdo waad gaartay oo hadeer dad waqtigoodii halkan waa ay gelin karaan oo iyagana wax u qalmo waa ay heli karaan insha Allah waan sameyn doonaa waa Maxamed oo isagana jooga Kismaayo Maxamed wuxuu leeyahay ma suuragal baa in la helo internet free ah lacag la'aan macnaha maxaa ka jira muuqaalada ay kaga waramayaan internet free ah Maxamed waxaan aaminsanahay internet free ga ah shirkada ayaa bixiya mana ahan internet meel walba dunida ka yaala Google waa ay qorsheynaysay in internet free ah meelaha dunida dadka internetka aanan heli karin ay gaarsiiso shirkado kale oo iyagana sida Facebook oo kale qorsheynaya way jireen laakiin internet free ah oo shirkadna aysan bixinin oo adduunka dhan laga wada heli karo ma aaminsan inay jirto hadii ay jirtana waan jeclaan lahaa qof ibara si aan laftirkeyga aan u isticmaalo waa Maxamed oo isagana jooga Muqdisho Maxamed waxa uu leeyahay magacaaga oo saddexan inoo sheeg waxa tahay magaciisa macalin aan magaciisa la aqoonin Maxamed magacayga waa Maxamed su'aasha labaad macalin yaa kugu garabsiya hawshan weyn aad inoo haydo runtii ani kaliya qabta bilowgeeda ilaa dhamaadkeeda bilow ilaa dhamaad halkan sideed ku soo gaartay Maxamed wali ma aaminsani in aan gaaray meel la dhaho halkan oo meel weyn ah laakiin waan rajeynayaa inaan gaaro markii aan gaarana waxaan rajeynayaa dad badan inay ila gaaraan oo keligii gaarin haddii aan soo koobo inta hadda hawshan qaybtan yartay hadeer aan ka soo gaaray waxaan aaminsanayaa inaan ku soo gaaray dadaal iyo dulqaad waxaan inta badan ku dadaalaa in waqtigeyga aan ka faa'iideysto oo aanan meelo kale maalayacni ku bixinin inkastoo inta badan ay igu adkaato haddana waan ku dadaalaa oo mar walba waan ku dadaalaa waan ku sii dadaalaa midda labaad oo waan u dulqaataa oo inta dadaalkaas aan ku jiro wax iiga hor imaada waan u dulqaataa haddii aan u dulqaadan waayn waan ka dulboodaa si meesha kale aan u sii gaaro mahadsanid Maxamed waa Cadnaan oo jooga London UK Ingiriiska wuxuu leeyahay maxay u taagan tahay magaca IM252 Cadnaanow muuqaalkii sanadkii hore ee su'aalahan uga jawaabayay yaan uga jawaabay su'aashan laakiin aan ku celiyo IM252 IM waxay u taagan tahay laba erayo English ah I aniga M waxaan ahay 252 ama 252 waxay u taagan tahay furaha taleefanada Soomaaliya sidaa darteed IM waxaan ahay 252 Somali waa bile oo ku nool Norway fadlan ma isku day kartaa inaad noo soo bandhigto barnaamijyo Apple ama iPhone ku saabsan horta inta badan barnaamijyada aan ka hadlo waayadan dambe waliba bilooyinkii dambe 5 ilaa iyo 6 bilood ee ugu dambeysay inta badan sida kuwii hore kale ugama hadlayn Android kaliya oo waxa ku jiray barnaamijyada iPhone-ka barnaamij walba oo hadeer aan soo bandhigayno waxaan jeclahay in isagoo Android aan soo bandhigo hadii uu jiro isagoo iPhone aan soo bandhigo inta badan muuqaalada hadeer way ku jiraan barnaamijyo iPhone kaliya ku saabsan insha Allah iyagana waan soo bandhigi doonaa sideed ku noqotay wax aad hadda tahay Xuseen waxaan aaminsanahay inaanan hadeer wax la sheego oo saas u weyn ahaynba oo sida adoo kale iyo dadka caadiga kale la mid ahay laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa aniga iyo dad badan oo Soomaaliyeedba in maanta heerka aan taaganahay aan ka gudubno oo heerar kale ka sareeya aan gaarno laakiin waxaan aaminsanahay ilaa hadeer heer weyn inaanan weli gaarin ama u dhawaan waa Sakariye oo jooga Burtinle Nugaal Sakariye wuxuu leeyahay sidee taleefanada iyo networkska aan si fudud oo waqti yar ugu baran karaa Sakariye wax walba oo ku dadaasho una dulqaadato waxaan aaminsanahay inaad baran karto inkastoo taleefanada barashadooda ay ka fududahay networkska iyo cilmiga shabakadaha haddana cilmiga shabakadaha inaad si kooban u barato
si guud u barato waad samayn kartaa laakiin waxaan kugula talin lahaa qayb ka mid inaad barato oo waqti fiican geliso aadna ugu dadaasho waana hubaa inaad baran karto alla idankii waxay ka timid Cabdinaafac oo isagana jooga Gaalkacyo Cabdinaafac wuxuu leeyahay muuqaaladaadu ma waxay ku kooban yihiin hal field ama hal qayb oo kaliya intaan arkayay social media ama baraha bulshada maadaama iyada had xooga saarto Cabdinaafac oo horta baraha bulshada kaliya kuma eki oo meelo kale inta badan barnaamijyada waan ka hadlaa laakiin baraha bulshada sababta aan xooga u saaro waxay tahay caqabadaha dadka ayaa u badan anna waxaan xooga saaraa sidii aan u xalin lahaa caqabadaha dadka haysta waxaana ka soo dhiraandhiriyaa su'aalaha ay inta badan dadka i weydiiyaan su'aasha xigta waa Muntaha oo joogta Muqdisho Muntaha waxay leedahay maxaa kugu dhaliyay in aad barnaamijkan iqtiraacdo oo maskaxdiisa keento kadibna aad dadkaaga ka qabtirto horta sanadkii 2015 waxaan master's degree ka diyaarinayay ama heerka labaad ee jaamacadda ka diyaarinayay jaamacadda Daffodil International University ku taala Bangladesh waqtiyada aan fursadda lahaana way badnayd markii aan qadaynayo ama aan cuntaynayo waxaan jeclaa in YouTube aan shito computerka ka galo samicadahayga dhagaha ku xirto kadibna aan daawado muuqaalo ku saabsan teknolojiyadda gaar ahaan aan ka daawado YouTube-ka waqti badan oo aan ka daawanayay waxaan kaliya inta badan arkayay muuqaalo tayo leh oo dad qalaad ay sameeyeen ama luqadda English lagu diyaariyay ama luqada kale muuqaaladaas daawashadoodii oo waqti badan aan geliyay kadib waxaa maskaxdayda dhowr jeer ku soo laalaabatay maxaadan u helin muuqaalo tayo leh oo teknolojiyadda ka hadla oo qof Soomaali uu diyaariyo maxaana loo helin anoo su'aashaas isaga jawaabaya yaan markaan wadanka ku soo laabtay waxaan bilaabay in si bilow aan muuqaaladan u sameeyo kadibna aan u bedelay IM252 su'aasha labaad saan ognahay qof walba oo shaqo adag haya caqabad wuu la kulmaa marka caqabad taa la kulantay tii ugu darnayd oo horseedkaaga aayar dib u dhigta ma noo sheegi kartaa horta ma jirin caqabad aan la kulmay oo ka darnayd in nafteyda mar halis u gashay barnaamijkan mana rabo inaan faahfaahin dheer ama faahfaahin badan ka bixiyo laakiin caqabad ka weyn in nafteyda halis u gashay ma jirin su'aasha saddexaad IM252 halkee buu ku yaal magaalada Muqdisho jaamacad kuliyad maashee baratay kuliyadday ayaad baratay computer science waan jeclaan lahaa kuliyada kale inaan wax ka barto laakiin hadeer waxaan ku ekahay computer science iyada laftirkeed wax badan inaan ka aqoon ayaan aaminsanahay haddii aan u gudbo su'aasha xigta waa Cabdulaahi oo jooga Muqdisho Cabdulaahi waxa uu leeyahay waxaan rabaa inaan noqdo sidaada oo kale oo aan noqdo macallin dhanka teknolojiyadda ah marka maxaad igula talin lahayd sidee ama halkeese habboon inaan ka bilaabo Cabdulaahi horta waxaan kugula talin lahaa marka ugu horeysa inaadan ani oo kale noqonin oo aad ka fiican noqoto waadna noqon kartaa kaliya dadaal halka aad ka bilaabi lahayd waxaan aaminsanahay inay fiican tahay inaad ka bilowdo in aad ka faa'iideysato waqtiga aad haysato aad adeegsato qalabka aad haysato inta hadeer aad taqaanana aad wax ku bilowdo kulay wax kale waad baran kartaa waadna baranaysaaye markaad waqtiga ka faa'iideysato oo wax aad haysato qalab ahaan aad ka faa'iideysato waxna ku samayso waxaagu way sii kordhayaan wayna kobci karaan dadaal haddii aan u gudbo su'aasha ugu dambaysa ee dhanka Facebook aan ka jawaabi doono waxay ka timid Cabduqaadir Cagdhigta oo jooga Canada Cabduqaadir wuxuu leeyahay horta waxay la fiican inaad isbuucii hal mar soo geliso barnaamijkaaga hadeer waa soo geliyaa waad aragtaa Cabduqaadirow su'aasha labaad dadka la shaqeeya ma jiraa barnaamijkan horaan uga jawaabay Cabduqaadirow maya muuqaalada bilow ilaa iyo dhamaad
anigaa diyaariya. 3 markaad barnaamijka diyaarinayso dhib intee la eg ayaad kala kulantaa. horta waad iska dareemi kartaa markii wax la sameynayo dhib la'aan ama caqabad la'aan ma jirto. laakiin caqabad walba iga hortimaado waxaan ku dadaalaa inaan ka gudbo aan ka tallaabsado. muuqaalada qaar markii aan duubayo waxaa laga yaabaa in 7 iga qaadato. muuqaalada qaar waxaan xusuustaa in 7 muuqaal aan diyaarinayay aan ugu dambeyntii imid gunaanad ah in muuqaalkaas uusan u qalmin in aan dadka usoo bandhigo. muuqaalkii oo dhan waan tirtiray, haddana dibaan usoo bilaabay anoo og in kii hore 7 iga qaadatay waqtiyadii aan fursadda lahaa inaan geliyey. runtiina caqabad waqtiga iga badanna ma jiro. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin asxaabta qiimiga badanow. halkan waxaan ku ekayn doonaa ka jawaabista su'aalaha iga yimid asxaabteyda gaar ahaan dhanka Facebooka ay iga soo weydiiyeen xilligii sanad guuradii 2 ee IM252. waxa ii harsan inaan ka jawaabo su'aalaha iga yimid asxaabteyda ee dhanka YouTube-kana ka yimid. iyagana muuqaalo kale oo soo socda ayaan goordhow kaga soo jawaabi doonaa alla idankii. waxaan rajeynayaa haddii aadan ka mid ahayn asxaabta IM252 in aad ku soo biirto oo aad channelka YouTube-ka ama kanaalka YouTube-ka IM252 subscribe garaysato, gambaleelkana taabato si aad muuqaaladii ugu dambeeyay u hesho. waxaan idin rajeynayaa guul iyo horumar. Easy faraxsano.